Videogan waxaan rabaa inaan ii sharaxo sida loo kala duwan yahay. Waa aragtaan maanta Ingiriiskii marka uu ka tagay Somaliland in isaaqa dad kale oo ay soo boodeen ay dhaheen annagu nooga tagay. Dadkii la dagaalamayena dadkii la dagaalamaya dadkii oo gumaysi ka soo horjeeday waa kuwaana waa daraawiishta. Dry country. The people of Somalia respect this harsh terrain and sustain life from its meager resources. What seems barren to outsiders, the Somalis regard as a blessed land teeming with camel herds. Somalia belongs to its people. Its pastures are a gift from God to all Somalis. Somalia straddles the Red Sea and Indian Ocean in the northeast corner of Africa. This is the Horn of Africa, the biblical land of frankincense and myrrh at the crossroads of Africa and the Middle East. There are 4 million Somalis and 6 million camels in Somalia. Over half of these people are nomads, the rest farmers and city dwellers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. inaan ku duubo maansooyinkii qiimaha iyo qaayaha badnaa mujaahidkii hogaamiyihii Soomaaliyeed Allah u naxariistay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee Ingiriiska iyo gaale kaleba u diiday wadanka Soomaaliya inay isku dhalaan oo ay deegaan kuna soo tabcay diinta Islaamka ee Soomaaliya boqolkiiba boqol gees ilaa gees lagaga dhaqmo. Marka waxaan ka afeefanayaa wixii aan khaldo waxaan ay shakhsi bini aadan ah wixii aan saxana Ilaahay baan ugu mahadnaqayo. intaas ka bacdi waxaan taariikh yar oo kooban ka bixin doonaa insha Allah ta'ala Sayid Maxamed waxa uu ku dhashay magaalada Boqorle meel u dhow Baliliyaas Axmed Deeqo taariikhdu markii ay ahayd 1856 kuga la baxay gobaysani oo aad iyo aad barwaaqo oo hadda iyo wixii ay dhashayba ay hana qaadeen. inta ka bacdi Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu bartay shariicada Islaamka oo ku bartay xeer cilmidii fadhiday nugaal daafiheeda kala duwan. ka bacdi Sayid Maxamed waxa uu muddo fara badan joogay Soomaaliya isaga oo faqiih ku noqday shariicada Islaamka. inta ka bacdina Sayid Maxamed waxa uu gudbay xagga iyo dalka Saudi Arabia isaga oo wadanka barakaysan ee boqortooyada Saudi Arabia magaalada Makka iyo Madiina fara badan joogay cilmigana ka soo raacday. kabacdina waxa uu soo noqday iyadoo wadanka sidii uu haysto gumaysiga Ingiriiska markii uu marayay magaalada Berbera ayaa ninkii Berbera xukumay wuxuu ku yiri kan cashuurtii laga qaadi lahaa marka aad soo degto. kabacdina sayidku wuxuu weydiiyay kelmadii noqotay hal hayska ee uu yiri adigu markaad wadanka Soomaaliya imaanaysay yaa ka qaaday cashuurtii. ninkii Ingiriiska waxa uu fahmay ninkan inuu yahay nin xeel dheer dabadeedna si aan dadku u fahmin wuxuu yiri inaga sii daaya ninkani waa wadaad waalane. kelmadaas dadkii Soomaaliyeed ee meelaha fogfog ay ugu tagtay waxay u haystaan Sayid Maxamed inuu ahaa nin waalan mase waalayna ninkan Ingiriiska ayaa wuxuu ugu tala galay inuu ummadda Soomaaliyeed indhahooda kaga jeediyo kelmadda marka weyn ee ummadda Soomaaliyeed qofkii maqlaaba uu gumaysiga nacay ka gilgilanayay dareemayayna gumaysigu inuu wadankiisa cashuur kaga qaadayo iyo ciidiisii. Sayid Maxamed waxa uu bilaabay halgan hubaysan oo uga soo horjeedo Ingiriiska xabashida iyo Talyaaniga iyo dhammaan wixii gumaystayaal joogay wadanka Soomaaliya. dagaal fara badan ayay isku qaadeen isaga iyo gumaystayaashaas. sayidka oo kaashanayay kooxdii daraawisheed ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu gargaaray. dagaaladaas waxa ugu horeeyay dagaalkii Afbakayle
oo dhacay 3 bishii shanaad 1901 dagaalkii Fardhidin oo dhacay 16 bishii toddobaad 1901 dagaalkii Beerdhiga oo dhacay 10 bishii sideedaad 1902 dagaalkii Cagaarweyne oo dhacay 17 bishii afraad 1903 dagaalkii Daratoole oo dhacay 18 bishii afraad 1903 dagaalkii Jidbaale oo dhacay 10 bishii koowaad 1904 dagaalkii Ruuga oo dhacay 9 bishii tobnaad 1913 dagaalkii dayuuradda Taleex oo dhacay 10 bishii koowaad 1920 intaas waa goobihii ugu waaweynaa ay isku haleeleen sayidka iyo daraawiishi sayidka iyo ciidamadii daraawiisheed iyo gumaysiga Ingiriiska hase ahaatee waxaa jiray dagaalo fara badan oo googoos ah oo ay wada galeen daraawiishta iyo Ingiriisku iyo dagaalo kale oo ay wada galeen sayidka daraawiishtiisa iyo kuwii ka soo horjeeday ama Soomaalida ahaa ama maxaan ku raadaba dhilibka ahaa gumaysiga gabayada uu sayidku tirinayo dhammaantood waxa uu ugu jeedaa inuu ama Ingiriiska ku maagayo ama uu Soomaali ku kicinayo oo tusayo gumaysigu waxa uu la maagan yahay ama uu dad soo maagay oo Soomaaliyeed oo Ingiriiska la jaal ahaa iyo gumaysigii waddanka haystay iskaga celinayo haddii aad ka dhex aragto kelmada qabyaalad ah sayidku qabyaalada ugama jeedo inuu raaska oo dhan wada maagaye wuxuu u jeedaa intii markaa Ingiriiska raacday ee duleysay dadka islaamkaana ka soo horjeesatay waxaan insha Allah taala soo gudbin doonaa gabayadu halkan kuma dhammaan karaane inta aan isdhaado mala waa ugu marweyn yihiin gabayada sayidka waxaan ugu horeysiinayaa gabaygii la oran jiray Gudban gabaygan Gudban oo looga yaqaanay xaruntii daraawiisheedna Gaalaleged oo darwiish rasmi uusan noqon jirin ninka aan xafidin gabaygaasi xilligii u dhaxaysay 1900 iyo 1898 ilaa 1910 wuxuu sayid Maxamed dadka Soomaaliyeed ku waday waano dacwo waxsiin iyo soo dhaweyn iyo si la isu wada raaco oo si wada jira gaalada la isaga kaashado meel looga soo wada jeesto inkastoo xarun daraawiisheed dad fara badan ay ku soo biireen haddana waxa aflagaado iyo adyad ka deyn waayay dad badan oo si xoog leh ugu meegaarna daraawiishta hareeraheeda lana jiray gaalada oo garab iyo gaashaanba u ahaa markaa kadib ay daraawiish waxay la ahaatay haddii waanadii iyo wanaagii wax tari waayay ummaddiina ay diiday in waran caaradii lagu kala sad qaado oo diinta Ilaahay iyo geyiga Soomaaliyeed gumaysiga lagaga xoreeyay inta raacsanba waran caaradii sayid Maxamed daraawiishta wuxuu ku gubaabinayaa wixii raggoodii la laayay iyo dadkoodii xoolahoodii la dhacay waxa murugo ka haysa isagoo tusaya in daraawiishta in badan oo kamida kibir loo laayay waxa uu isku dayayaa inuu tuso meelaha ay u baahan tahay in la galo oo daraawiish ay weerar ku qaado wuxuu Soomaali tusayaa in aan wax naxariis ka dhaxaynin sayidka iyo daraawiishtiisa iyo inta ka soo horjeeda ee ah gaalka iyo gaala raaca nin dhalay raggeedii waa ninkan لا إله إلا الله مر والبان صح حسستني كان مر والبشيء كريس مغلو وح عصبة إيه صباح والله إني كان جيس دلي واحد جيس دلي يا واد مغليسان إنجليز كيسقون ولا نحجوه باقوة الصومالي ذا أقدق دراويشتا ومعناه ذو فانسنتين وادتك إساق الله ba waxay ka doorteen inay Ingiriiska la shaqeeyaan ee Soomaalida kala weeraraan ee ka dhacaan lo'dooda iyo goolkood sidoo Ingiriiska u qaato sayidku wuxuu sameeyay kelmad la yiraahdo gaal iyo gaala raac oo aanu ka sokaynin isaga iyo daraawiishtiisa dubcadii sayidka loo yaqaanay ee raganimada iyo jihaadka meel iska dhigtay aan ku soo dhawaano gabayga Gudban oo tilmaamaya tiraanyo gubaabo garnaqsi iyo waxyaabo fara badan isugu jira wuxuu yidhi sayidku haweel maan sawaataan gudbo guriyay waayaane waataan galbeedkaas u diray guga hortiisii angaasheeyo tii xalay hurdada gama aidiide ugudooricuunay aan ka socon xoogaa gabayada because dadkan cusub wax ma ka fahmayaan Taleex waa aragtaan ani ma ku fiicni gabayga aad mu fiicni gabay
laakiin aniga waxaan rabay keliya inaan tusiyo radiyo magii i helay wanka gaylami awowgaga geba geba galayubtaha kolango ay war mahanagu gaagi gari sidii loo gondolay gobol marka fiirsada sawirkan ya sawirkan fiirsada ma aragtaa caskarta ingiriiska meeshay taagan tahay ya iyo kii talyaaniga fiirsada ninkan waa nin ingiriisa kofi iyo naagtiisi waaye somalilandarka isaaqa saasay u qaadayaan fiiri waxay ku qaadayaan boqor camal fiiri boqor camal ay u qaadayaan ma aragtaan ya isaga iyo naagtiisi waaye fiiriya af kuwa madmadowga dhan ag jooga waxaa waaye ku labada koofiyadda xiran waxaa waaye kofi iyo naagtiisi zaylac bay kasoo degeen fiiri somalilander kuwa isaaqa la dhaho waa kuwa qaadqaadaya maqlaysaan isaaqa waxa uu samayn jiray waqtigaas waa kasaa haddana waxyaalo kalaan tusinaya oo isaaqa sameeyaan fiiriya dadkan waa dadka ugu daciifsan adduunka east africa ebowgoonji wayniyo xaqbay naga gulafteeni gulow ma helayaan waxay nagu gubayaane ebow waxay naga gogtaan wagaloof oloole ebow sidii gun haweenkiidu waaniye ebow nin goobaban ahoo guni rifaysaaye ebow waxaa noo qatar waa dadkan maasha allah aadaan u jeclaa my ancestors brave warriors waa dadka ugu khatarsan adduunka taariikhdii sayidka intaanan noo bilaabin kulligeed dagaalkii goos dulmadoobe dagaalka la yidhaha dulmadoobe dagaalka dulmadoobe ama ruuga siduu ku bilowday bal nooga sheekee haye anigu waxaan anagu geelimaad waa maqan waaye anagoo geelimaad ku maqan oo dhow oo ka jiiday meel la yidhaahdo geeda muraale beerta geeda muraale yaan joogay waxaan leexid daaraa sameeyey geeda wallaahi bilaahi dhulbaantaha iyo warsangeligu waa dad khatara fiiriya wallaahi dhulbaanta iyo warsangeli waa dad khatara because waxaad is leedahay qabiilada ka waaweynaa fiiriya qabiilada ka waaweynaa ee markaas meeshaas la deganaa wax ay samaynayeen male ka warrama cadowgay dabada u dhiganayeen fiiriya waa waxa lala yaabaya maogtahay taariikheen annaga cadowga dabada laysu dhigaayo hadhowna laisfiirsanayo waana ninkan waa walaalka cadow la dagaalamaya adigana waa fiirsanaysaa marka aniga qabiilkan dhulbaanta iyo warsangeli sharaftooda cid ka sharaf weyn soomaaliya dhan ma jirto war cir u bood kor u bood meeshaa rabti tag weligood ma gaarayaan sharafta taraawiishta iyo dadka warsangeliga iyo dhulbaanta dadka la dhaho weligood ma helayaan sharaf ka fiican marka hadda aniga dhulbaanta iyo dadkaas se u dagaalamaya waan tusiye laakiin hadda waxaan tusinayaa fiirsada hadda waxaan tusinayaa isaaqa waxay sameeyaan fiiriya isaaqa waxay sameynayaan ana tusinaya marka okay fiirsada The Somali population in Cardiff has the largest British-born Somali population in the UK. Somalis are generally thought to have first arrived in Britain in the late 19th century.
Largely from British Somaliland, early Somali migrants, the majority of whom were male, worked either on ships transporting coal and other goods or for the merchant navy. Most of the seamen considered their stay in the UK as temporary and had left their families behind. Indeed, as a result of an Act of Parliament passed in 1894, an act maintained until the 1950s, Somali migrants were legally restricted to working in the shipping industry and were paid at rates 25% below the pay of native British workers. They were also forced to settle only in towns and cities that were centres of shipping. Most Somali seamen settled in seaports like Cardiff, Bristol, Hull, Liverpool and London's Docklands. Like other black seamen, they were assumed to be accustomed to a hot climate and hard work, and were therefore taken on to stoke the ship's boilers as donkey men or tend to the engines as greasers below decks. There was usually plenty of work available for the seamen in the docks and later in the steel industry, although they were often filling jobs that the white workers didn't want, whether on the tramp steamers where working conditions were tough, or in the merchant navy during World War I, when white British seamen were transferred to the Royal Navy. It was not an easy life, and times of economic crisis could spell disaster. The Great Depression, for example, saw hundreds of Somali sailors dying from starvation through lack of work. Some of the Somali sailors settled down and married local women, whilst others returned home periodically to visit their families, living in boarding houses during their time on shore. The boarding houses were run by Somalis themselves and provided the visiting sailors with the familiarity of a shared language and customs. However, they knew very little about Cardiff or Wales. When you were younger, did you know many people here? abood wasooyinka jaasuusiinta waa kuwaana marka shaqaa la wada siiyey wasakday dhaqaan. Children, did your parents tell you stories about Cardiff's past? But the people were ignorant by this one. Ignorant, they didn't know nothing at all. Yeah. After the Second World War, 2000 اي عمل u shaqeynaya fiiri waa shaqooyinka ugu xun mahadsanida la dhahay yani Queen Victoria waxay leedahay Somalilanderka Isaaq waxay leedahay mahadsanid nala dagaalantay Soomaaliya nagala dagaalantay dhulbahantaha dadka la dhaho oo Queen Victoria ay ka qaylinaysay buugaagta ay ka qortay dhulbahanta soo fiiriya waxay leedahay alla dili dadku waa dad dhibaato miirana askartayda bay cunto u diideen baa bay leedahay waa kana Ingiriiski Somalilanderka dabaleefkoodii intay keentay fiiri waxaa la geeyay Ingiriiska waxa way 1800 iyo 1900 markii dagaalka hadda naga dhamaaday ay naga baxeen waa fiiriya waa markii la qabsaday. Somaliland forms the cap of the Horn of Africa in Eastern Africa. It's bordered by Kenya in the south, Ethiopia in the west, Djibouti in the northwest, the Gulf of Aden in the north, and the Indian Ocean in the east. The Italian troops take over from the British in Italian Somaliland. Thus begins, under United Nations rule, their reconquest of what was once the pride of Italy's colonial empire. In the 1880s, Britain and Italy occupied different parts of Somaliland, and it remained under colonial control until after World War II. By 1950, the United Nations had voted to grant independence to Somalia, and in 1960, the Somali Republic was formed. The Farah family has a long history of being involved in the community, which began with Abi Farah, who came to Wales from Somaliland during the late 1800s. Abi was known as father to countless colonial seamen who sailed into the docks of Cardiff. ninkan Farax baa la dhahaa waxa way ninka saxiixa waa aabihiis ninka saxiixa siiyey Ingiriiska inay soo degaan
soomaaliya dhexdeeda somaliland weliba ay ka gurtaan lo-dooda iyo waxooda si ay u wadaan fiiriya waa dadkan Barry Airport, as he was often the first point of reference for them, and many sought his guidance and advice when they first arrived. He founded Cardiff and Barry Coloured Society and the innovative Domino Youth Club in Thompson Street, Barry, which attracted children from all over the area and ran successfully for a number of years. Abbey became the president of the Colonial Club in Barry and a little later went on to manage the Colonial Club in Bute Street, Cardiff. He was a fiiri haddii waddankaaga la soo weeraray oo waddankaaga laga badiyey haddii adiga shaqo waddanka dadka kaa badiyay ee shaqo kaa siiyaan macnaheedu waa fahansantaha u malaynayo no ya waa jaasuusiintii annaga nagu dhex jirtay ya dadkan somalilander la dhaho ha u malaynin ee saaqa ah inuu walaalka yahay did the MBE by King George VI for his wartime services to seamen. I was in charge of a mashru' for helping people wuu caddaaday fiiri by mines. ninkan soomaali waa caddaanka ah u aragtaan yaa waa laiska dhalay waa isaaqi dhan laiska wada dhaldhalay ya wax ay yihiin maal waa wax wada cadcadaana way dhammaadeen iyagii dhan way tirtirmeen kalarkoodii aa isbedelay ma ka harin koob madooba ma ka harin ya ingiriiskay wada tageen waxay wada guursadeen naaga wada caddaana Abdul Rahim Abdul was schooled in Barry and Cardiff before joining Exeter and then Oxford University. He worked as a Somali government official and became director of the Somali Information Service. Ethiopia ma aragtaa ay u shaqaynayeen waxay ahaayeen jaasuusiinta Oxford University. Oxford University waqtigaas dadka ku jiray dhan khaniisiin oo waxay ahaayeen espionage spies bay ahaayeen waxay u shaqaynayeen xataa ruushka ajnabiga cid walba kuwaan somalilanderka xataa way u shaqaynayaan fiiri Somali government official. Ethiopia fiiri ma aragtaa calanka Ethiopia meeshaas inuu taagan yahay waxay ahaayeen jaasuusiinta Ethiopia awalba siyaad bare dadka uu la dagaalamaya hadhow intay ka yimaadeen Ethiopia dadka xiriirka la galay waa Mingista Haile ninka boqorka Ethiopiaanka ah yaa beeni laga dhaadhicin Soomaaliya dawladda siyaad bare uu ka xaqdar ma uu ku sameyn siyaad bare xaqa waddankiisa u dagaalamay cadowga isagoo og taariikhda because badankiina jaahiliinaatiin taariikhda ma ogtiin The Somali Information Service and also served as Somali ambassador to Ethiopia before moving to the United Nations as permanent representative of Somaliland. He was also Minister of Agriculture as well as being Somaliland's representative on the Organization of African Unity. In 2006, Abdul Rahim and 6 other distinguished delegates were sent to Somaliland on a goodwill mission to help resolve a number of challenges facing the country. I, Kofi Annan, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience, the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations. jaasuusiinta As Secretary General Somaliland. of the United Nations. Abdul Rahim also became the Under-Secretary General of the United Nations, second only to Kofi Annan, one of the most important people in the world. The Union Jack flies over British Somaliland, which was lost to the Empire when France capitulated but quickly retaken. General Cunningham is one of the outstanding commanders of the campaign in this corner of the world. He is a brother of Sir Andrew Cunningham, who commands the Mediterranean fleet. Our cameraman accompanied General Cunningham on a tour of inspection to this outpost of Britain's fighting empire. From this inspection, we cover an extract of the work of Empire armies on the borders of French Somaliland, still under Vichy control. These are men of the King's African Rifles, and part of their duties now consists of preventing the smuggling of goods into French Somaliland. This is a unit going out to relieve an outpost from a spell of duty. waa madow Afrikaan waay
He's a black brother fighting his own brothers. He's willing to put his brothers in colonization. Working for the white master. This is Isaac clan from Somaliland. Isaac people from Somaliland. Like dogs. This is a little group caught the night before trying to run the blockade. Vichy is fighting Hitler's battles and we are not going to help. But our kind-heartedness does induce us to allow the transport of milk for expectant mothers. We can only trust the said expectant mothers are not members of the Gestapo. The Free French flag is flying on the frontier. French Somaliland contains the important port of Djibouti, giving sea access to Abyssinia. Free French troops are allowed to move as they please along the frontier, but the troops under Vichy command are not allowed to approach for fear of desertion. The relief by this time has arrived at the outpost for its new spell of guard duty. Sentries are posted, instructions passed over from the old guard. A patrol goes out with scouts to maintain the eternal vigilance required of all the Empire armies. Even in this wild hinterland, there can be no relaxation. ما فهمت كان سانسوا جاسوسين weligood ahaayeen weligood jaasuusiin ahayn jaasuus oo caddaan ama cid kale u joogo ya waa kuwaana ingiriiskii iyo isaaqii iyo jareertii oo isla socoto aa soo weeraraya dhulbaante ya jareer etoobiyaan ingiriis iyo isaaq baa soo weeraraya dhulbaante geesiyaasha soomaalida boqortooyada soomaalida geesiyaasha dhale ee soomaalida maasha allah دماد ملا دراويشتا اتاك لا باك اتاك ورور عذوق دل عذوق دل دراويشت فيري دول بانت فيري تقال ماي الله وارقيدي دتكن دول بانت يور سنجلي فيري مرك Very hot and very dry, that's the British Protectorate of Somaliland, where rain seldom falls and life in general is pretty tough. فيري إساق Wealth
wealth is measured in camels, the Somalis' most precious herds. Camels provide food and they provide transport. The people could scarcely get along without them. A royal visit to this country is Isaaq fiiriye. and it was obvious that the youngsters in particular were out to make the most of it. ya waa cadow waddankaaga soo galaya saana loo galayaa fiiri. Special message of greetings from the Queen to the Somali people. The Duchess, visiting a school, was entertained by a spirited performance by girl students. Ceremonial parades were naturally quite a feature of the visit. They look very smart too. Isaaq. Waa kuwaana Isaaq. The Duke thanked the troops on behalf of the Queen. Yee la dagaalamayaan dhulbahante. Near Hargeisa, about 100 mounted tribesmen had gathered to express their loyal greetings. They said it with a spectacular charge across the airport. A short visit to Aden completed the Duke and Duchess's tour. London's Festival Hall. Yaa kuwaasa. Jaasuusiinta. The government of Somalia Jaasuusiinta. has severed diplomatic relations with Britain. So at Mogadishu, our embassy staff had to say goodbye to the country in which they'd been very happy. In some quarters, the decision was a surprise. Maantan iyaga oo hadlaay. Dadkaan arkaysaan caddaanka oo dhahay Somaliland ha la ogolaado. In May of 1991, members of a group called the Somali National Movement decided to secede from Somalia and form their own state. Since then, they've established a functioning government and an economy in a region known for war and poverty. But the Somaliland passport is only accepted by a handful of African nations, which effectively isolates its self-declared citizens. Way u fiican tahay. If Somaliland has all the Somaliland is not a country or anything. It is just a province of Somalia. But these Western people want to thank them for like their betrayal of the Somali nation. You see the Isaaq people, the Somalilanders, the ones that live in Somaliland right now, who claim to be, who claim that they are not one of Somalis, they don't want to be in Somalia. These people were the English simps, English coons, Queen Victoria's dogs. You see? This is why they pretending like somebody have hurt them, like Siad Barre have hurt them. This is all excuse. Yeah? Siad Barre have done nothing to them. He just slapped some traitors. ما فهمت؟ But this is the game they play, this Somali Isaaq nation. to become a country, why isn't the world recognizing it? Yeah, because it's everybody knows. Occupying British agreed to lift their claim on Somaliland, as long as it merged with a neighboring former Italian colony. The unification... They lifted up as long Somaliland will merge with Somalia, the greater Somalia. حرية waxaa loo siiyey Somaliland in ay ku raacaan Soomaaliya hadii kale xorriyad ma jirin laakiin way dhaceen fiiriya tuugnimo u bedeleen waa dad tuug ah waa dad wasakh ah waa dad Soomaalinimadooda nacab meel walba aad tagtid waxay la taagan yihiin Soomaali baa saa noo gashay darawiishtan waa ka rageedii cadawga la dagaalamay walaalahay waxa way dadka ugu geysan dhulbaanta warsangeli iyo mareexaan ku darba rageedii waa rageedii xorriyadooda u dhinteen 300,000 ka dhimatay 400,000 20 sano ay la dagaalameen cadawga si aan adiga wax lagu dhigin wax kale lagu dhigin xorriyad bay u dhinteen yaa laga dhadhicin Somaliland iyo beenteeda iyo isaaqaano dabadooda gaday In a struggle, the Englishman falls off the pier. The belligerent Somali is not arrested, but is simply dismissed as being mad. Ninu dilay Ingiriisa wuxuu dhahay lacag bixi wadankayga baa joogtay fiiriya Ingiriiskan waxay u yimaadeen inay isaaqa ka dhacaan wax walba The Said starts denouncing his countrymen who cooperate with such colonial authorities, urging all Somalis to work together as Muslims. If the land is your land, why aren't you its government?
If Islam is your religion, why do you submit to infidel overlord? His message inspires many to join him. They become the dervishes, warriors devout Muslims dedicating their lives to the service. dhulbaanta iyo warsangeli Their units repel Ethiopian soldiers who have plundered Somali villages. In 1899, the British receive a defiant letter from the Said, challenging their very presence. Now choose for yourselves. If you want war, we accept it. But if you want peace, you must pay us a protective tax. Relations deteriorate. Britain proclaims the raggeedii waraaq u diray ingiriiska wuxuu dhahay haddaa rabtaan waddankan inaad sii joogtaan inaad lacag bixisaan waaye yeah is that gangster or not yeah gangster waa ninkan Said to be a rebel of the empire. To the imperialist mind, his rejection of colonialism confirms his madness. Said Mohammed is henceforth branded the Mad Mullah. The colonialist armies join together to break his resistance. The British mount numerous expeditions against the Somali dervishes, mobilizing a multinational force of Asians, Europeans, and other Africans. Both sides suffer heavy casualties. Asians, Europeans, Africans, Ethiopians, they bring them all against who? Warsangeli and Dhulbahante, the fighting power of Somalia. A stalemate results. The Mad Mullah makes headlines in Britain. The Said addresses an open letter to the English people. I wish to rule my own country and protect my own religion. We have both suffered in battle. I have no forts, no houses, no cultivated fields, no silver or gold for you to take. All you can get from me is war, nothing else. If you wish peace, go away from my country to your own. Said Mohammed's dervish army continues to grow and soon numbers 10,000 men and women, all trained to ride and to shoot. The war-weary Italians and British negotiate a ceasefire with the Said, allowing his dervishes a territory in the interior. They regroup and create councils to advise their guerrilla army and its civilian supporters. raggeedii In 1910, Britain reluctantly withdraws her forces to the northern coast. Before leaving, arms are distributed to so-called friendly clans, thereby reigniting old rivalries. fiiriya isaaqana markii ay bixi rabeen oo laga badiyey rabay ay ka carareen darawiishta ay ka carareen waxay sameeyeen qoryo bay siiyeen dadka ay iyagii caawinayay kuwa isaaqa ahaa fiiriya qoryo bay siiyeen waxay rabeen dagaalka inay sii wadaan ee isku diraan soomaalida fiiriya kuwii ay isticmaalayeen oo isaaqa ahaa bay dagaal sii gelinayaan fiiriya asxaan ma u sameynayaan marka fahan kuwan somalilander isaaqan in la isticmaalay lo la isticmaalay inay yihiin lo la isticmaalay inay yihiin isaaqan dhan fiiriya British quickly realized their withdrawal was a mistake. They create a camel corps to patrol coastal areas. In 1913, its commander, Captain Richard Corfield, disobeys orders and leads an attack against the dervishes. Corfield is killed, his forces annihilated. Said Mohammed commemorated the dervish victory with a poem. You have died, Corfield, and are no longer in this world. A merciless journey was your portion. In that other world, tell your companions how God tried you, and say how the dervishes were like thunderbolts of a storm, rumbling and roaring. aad iyo aad Dervishes abandon their guerrilla tactics, building a network of fortresses to waa kaasaa marka taariikhda waa kaasaa isaaqa dadka la dhaho maanta iyo cid u booteynin cid ay wax u sheegi karta ma laha ma fahanteen waxaanoo dhan hargeysa barbara waxaa dhan la dhisay waxaa waaye dhiiggii soomaalida ku dhisteen waxaanoo dhan fiiriyaa dadkii u dagaalamay xorriyadan dhan bay ku dhisteen maanta bay maanta leeyihiin anaga somaliland baana la dhahaa saan baa nahay inta baana hooyadini dhaladini wada dhashay wasa jaasuusiin baa wada tihiin
kuwa fiican ee Soomaalida isaaqana way is yaqaanaan anaga idiga maba ka hadlaynaba ma fahanto walaal ha u fahmin yani cadownimada maba ahba maba ka soo horjeedna adiga dham waxaan ka soo horjeednaa isaaqan qurunkan ugu dhex jira ee jaasuusiinta ee weligood u shaqeynaya Ethiopia ama Ingiriiska boqortooyadooda ma fahanteen waad fahmaysaan taariikhdiina waana nii soo badinayna waa buuxda meel walba ku qorantaa idinkoo wada jaasuusiina war idinka maad isdishaan war qashinka maad isku dartaan nacalaabiin ku yaale waxay wada qashinka Muuse Bixi iyo Musiilaan iyo hooyadiini dhiladina wada dhashay waa awlaad alqaxaab awlaad الزينة nacalaabiin ku wadayaal awlaad الشراميط nacalaabiin hooyadiina god damn traitors shoot them by inside god damn traitor shoot him in his fucking face you goddamn traitor nacalaabiin ku yaal I hate this bastard traitors. Look at these bastard traitors. Yeah, bastard traitor. I'm not going to. Yeah, look at bastard trainers. Yeah, fucker. I hate these bastards. والنعبة دتكن والنعبة والله أدي أدبا والنعبة عدو ندح جوج يا ديني عدو